بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. ugu horeyn ilaahay baa subxaanahu wa tacaala keligii mahadle horeysiyo dambeysaba ilaahay baa mahadle mar labaadka waan mahadnaqayaa saaxiibkii Mukhtaar kilibkan iga duubay aad iyo aad u mahadsan yahay iyo dhammaan bulshooyinka inta magacayga iyo muuqaygaba garanaysa waxaan doonaynaa inaan maanta aan si yar oo kooban uga hadalno saddex qodob oo aan soo koobi doono oo ku saabsan xaaladda dalku marayo iyo heerka waxqabad la'aaneed ay taagan tahay dowladdii hoose ama golihii deegaankayn dooranay 2012 aakhirkiisi ugu horreyn haddii aan ka yaraa taabixiyo amba aan fikir ahaan cabiro xaaladda uu dalku marayo meel shii ugu xumayd ayaynu maraynaa iyaan aaminsanahay intii Somaliland jirtay oo aan soo dhan korona 19 baa ka liitay 27 sano Somaliland jirtay Somaliland waxaa ka jira xaalad colaadeed oo bariga galbeedba ka taagan waxaa jira xaalad sixir baran waxaa jira xaalad sarif baran oo gaaray heerkii u sahiisay oo oran karo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdina uu ku fashilmay go'aamadiisii iyo waxyaabaha ku ololeeyay aan oran karo uu ka dhamin kari waayo waxa uu ku ololeeyay ma yahay wax ma garanaysaa ka dhaba laakiinse waxay ahayd wuxuu qulubta shacbi uu islahaa ma garanaysaa lagu doorto madaxweynaha waxaan soo jeedin lahaa in koow xaaladii dalku meel adag bay maraysaa mudane madaxweyne inaad madaxtooyada inaad fadhida lagagama baahnayn waxa lagaaga baahan yahay inaad dalka meesha kastoo wax ka dhacaan xaaladda ugu horeysa dheeraf inaad tagto waa kugu bogaadinay inaad wafti culus oo culimo badan aad u dirtay halkaa ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ilaahay ku soo guuleeyo nabadna iyo guulaha ka soo galata halka qodobka labaadan doonayna qodobka markan xaalad dawladda dalka laga kaga baxo waxaan dooranay haddii nahay degmada Hargeysa 425 xildhibaan oo iminka muddo 6 sano jooga waxa ma garanaysaa ay taaganahay si Europe taaganahay waxaan ku taaganahay dalkeenii ama dawladii hoose ama governmentii dawladii hoose amba xaaladii danyarka ahayd ee dawladda hoose waxay taagan tahay halkii ugu hooseysay waxa jira xaalad nadaafad darro waxa jirta xaalad daryeel la'aan waxa jirta xaalad wada la'aaneed oo gaadhay halkii ugu sareysay dawladda hoose ama golaha deegaanku Cabdiraxmaan Soolteeg maayirka uu yahay waxaan oran karaa waa maayirkii ugu liitay soo mara waa maayirkii ugu qabyaalsanaa soo mara waxa jirta xaafadaha Hargeysa marka laga hadlayo oo marka xaafad Hargeysa hore laga hadlayo afar daamood amba afarta degmo ee ka kooban tahay degmada Hargeysa afarta degmo waxa soo waayay waxa oran karaa asaguna haduu xumaaday kuwa aan dooranay ay degmooyinka kale afarta degmo kale ka soo baxay ayuu baan oran karaa iyaguna ayaa heerka ayaguna ka sibiliiti waxaan u baaqayaa golaha deegaanka haddii inuu damiirkoodu sii nool yahay in maayirka iyo maayir ku-xigeenka heerka taagan ummadii shacabka xoolahoodii jeebka ku shubtay guryaha ka dhistay guryahoodana laamid wada hormarsaday gawaadhida fiicidkaana ka wada wata in xilka laga qaado muushina laga keeno si degdeg ah talaabo looga qaado taasna golaha deegaanka haddii inuu damiirkoodu sii nool yahay hadduu inuu damiirkoodu sii nool yahay qodobka saddexaad aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeye inaan ku shaaciyo inaan sharaxanahay golaha deegaanka 2019 insha Allah taala oo imika aan oran karo wax badan naga xiga markaan eega xaaladda dalka oo waliba degmada Hargeysa oo aan in badan ku galayay imika muddo 6 sano ku dhow xaaladeeda aan u dhundaloolay waxaan go'aansaday inaan isku sharaxo golaha deegaanka anoo khibradayda iyo aragnimadaada iyo aqoontayda ma garanaysaa kaashanayaan taa iyaan go'aansaday isku sharaxo shacabka Hargeysa waxay u baahan yihiin inay shaqeysa laakiin ma baahna inaad ka shaqeysata
oo magaranaysaa iyo dhacda oo gaari fayda ka haysata oo xoolahooda boobta cashuurta dan yartaay xaalaha ka soo baxay waxay u baahan yihiin in magaranaysaa loogu celiyo oo magaranaysaa wixii loo ballan qaaday loogu ballan qaaday in lagu sameeyo waxa jirta ay dadku tabay xaalad biyalaaneed xaalad wadalaaneed xaalad magaranaysaa musuqmaasuq iyo xaalad nadaafad darro oo tawgiilita Hargeysa xanuun baan ka dilaacin waxay taagan tahay heerkii ugu sareysay wadada magaalada way kala xiran tahay waxa jirta wadada u baxda wado xaween Hargeysa kala barkeeda dhex maraa hadduu caaw soo rogmaday magaalada soo kala xirmayso oo magaalada soo kala xirmayso oo aanay jirin wax qorshe ah oo halka xukuumadda dhexe dawladda hoose midnaan ugoon insha Allah taala waxaan isku dayi doonaa in xaaladda birishadaanada iyo wadalaanada jirta inaan wax ka qabanno anagoo magaranaysaa khibradeyda waa yaranimada ku shaqeyna shacabkii bulshadana kaashanay ilaahayna waxaan ka baraynaa inuu asturo haddii uu magaranaysaa talada lagu guuleeyo waxaan dhammaan soo jeedinayaa bulshada ku dhaqan degmada Hargeysa iyo golayaasha hore deegaanka wanaag qabyaalad iyo quran way ku soo dooran kuwa dambe farteena ku cilbaxno yaa wax qaban kara yaa waxaan fahmayaa aan ku soo doorano inaasan kaga bixira shirkiyada inaasu daarana aad iyo aad loo mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.